Dhacdadani waxay iigu dhacday 1 sano ka hor. Imtixaankii ugu dambeeyay ayaa soo socday. Welina waxaan u baahnaa in aan diyaar garoobo. Sida caadiga ah, maktabadda iskoolka waxaa la xiri jiray 5 galabnimo. Laakiin imtixaanka awgii hadda waxaa la xiraa saq dhexe. Si carruurta haddii ay u baahdaan ay ugu diyaarsadaan imtixaankooda. Gurigayga kama dheereen iskoolka. Laakiinse waxaan doorbiday in aan ku diyaarsado casharadayda maktabadda. Maalintaasi waxaan ka soo baxay gurigayga 6 saac. Waxaan imaaday maktabadda si aan u diyaar garoobo. Aniga waxaan ahaa qof waxbarashada aad u jecel. Sidaa daraaddeed waan dareemi waayay saacadda waqtiga ay tahay. Waxaan ku baraarugay iyadoo saacaddii ay tahay 10 habeenimo. Maktabadda gudaheeda waxay ahayd mid aad u aamusan oonan qof bilaadan aysan joogin. Waxaan sii watay imtixaanka inaan sii diyaariyo. Waxaan rabay in aan baxo 10:15. Waxaan maqlay shanqar. Shanqartaasina ay u egtahay in qof dhulka lagu jiidayo. Weli shanqartaasi ma aysan joogsanin. Waxaan dareemay cabsi aad u daran. Waxaan si degdeg ah uga soo baxay maktabaddii anigoo cabsanaya weliba. Waxaa jirtay iskoolka dhexdiisa waddo aad u dheer oo looga baxay albaabka. Waan soo dhaqaaqay si aan u baxo. Waxaan arkay qof dumar oo taagan albaabka meesha looga baxo. Ma aqaanin qofkaasi qofka uu yahay. Waan u soo dhawaaday. Laakiinse ma aanan dareemaynin deganaansho. Markii aan u soo dhawaaday cabaar kadib, waan istaagay. Yaa waaye, yaa halkaa jooga, mii maqashaa? Markii aan u dhawaaqay way qarsoontay. Waan soo baxay. Waddadu waxay u muuqatay mid cidla ah. Waxay ahaan jirtay ilaa subaxii waddadaani mid la socdo. Waxaan u soo dhawaaday gurigayga. Weli anigoo eegaya dhulka. Laakiinse si lama filaan ah waxaan arkay hooskaasoo ay tahay qof dumar ah. Qofkaasi waxa uu horsocday hortayda. Waxay u ekeed in qofkaasi uu yahay qof naafa ah. Waxay xirneed dhar jeexjeexan oo wasaqaysan. Korkeedana waxaa ku yaalay dhaawac aad u tiro badan. Tinteedana waxay u ekeed mid isku dhex daadsan. Waxaan awoodi waayay in aan sii socdo. Waan istaagay. Way istaagtay. Waxay si lama filaan ah ii soo fiirsay aniga. Waan cabsaday. Waxaan ka naxay wejigeeda cabsida badan. Way ii soo socotay. Waxay igu tiri, aaway gabadhayda. waan barafooway. Naxdin daraaddeeda waan hadli waayey waana dhaqaaqi kari waayey. Waxaan awoodi waayey su'aashii ay i weydiisay in aan ugu jawaabo. Waxaan u tilmaamay meel qaldan. Markii ay dhanka aado si aan uga baxsado. Waxay aaday dhankii aan u tilmaamay ilaa ay ka qarsoonto ayna gasho mugdigii. Waxaan u soo cararay si dhaqsi leh si aan u gaaro gurigeena si aysan iigu soo laabanin mar kaleeto. Waxaan maqlayay islaantii qayladeeda. Waxay ka carootay meeshii qaldaneed aan u tilmaamay. Way i soo ciirsatay ilaa ay iga soo gaartay. Waxaan soo miirsaday anigoo sariir dul saaran. Waxaa waddada iga soo qaaday dadka deriska ah. Waxayna i keeneen gurigeena.
1998 waxaa jirtay maamo magaceeda la yiraahdo Maria. Maria waxay lahayd gabar sanadkeedana uu yahay 10 jir. Maria gabadheeda waxay dhigan jirtay iskoolka Eldon Hill School. Waxay la nooleed gabadheeda keliyaata. Aad iyo aad ayay u jeclayd. Waxayna dhibsan jirtay kaligeeda inay iskoolka u dirto. Gabadhii yareed waxa ay gashay shil. Midaasi awgeeda Maria way u dulqaadan weysay, wayna isxakameyn weysay. Ciil daraadeeda waxa ay fuushay dabaqa sare ee iskoolka, wayna iska soo tuurtay. Intaa kadib iskoolkii hareeraheeda waxaa laga sheegi jiray ruuxantii Maria in ay joogto ayna dhibayso caruurta iskoolka dhigata. Haween kasta way soo bixi jirtay iskoolka iyadoo dhex wareegaysa, waxayna raadin jirtay gabadheeda. In muddo ah iskoolka cidna ma aysan imaanin, cabsi daraadeeda oo ayada laga qabo. Gabadhaani waxa ay soo degtay hotel. Markii ugu horeysay ay soo degtay waxaa loo soo gargaraacay albaabka. Markii ay furtana cidna waa ay weysay. Sidoo kale mar labaad waxaa loo soo gargaraacay albaabkii. Markaana waxa ay dareentay baqdin. Iyadoo tartiib ah u socod ayay waxay ka fiirisay duleelka cidda taagan banaanka. Markii ay albaabkii furtana cidna waa ay weysay. Kadib markii ay soo laabatay waxa u soo dhacay telefoon. Waxa ayna la hadlaysay saaxiibkeeda. Iyadoo sidii ula hadlaysa ayaa haddana waxaa la soo gargaraacay albaabkii. Markaani ma aysan ahayn gargaaritaanka albaabka ee waxa uu ahaa saqafka sare ee guriga. Iyadoo la yaaban taasi ayaa waxay ku tiri saaxiibkeeda, aniga ayaa kugu soo celinayo. Kadibna waxa ay wacday qaybta shaqaalaha. Waxa ayna u sheegtay in saqafka sare ee wax lagu gargaraacayo. Kadib wiil ka mid ah shaqaalaha ayaa waxa uu yiri, aniga ayaa ku imaanayo. Markaana iyadoo TV iska daawanaysa ayaa haddana si lama filaan ah qaybta sare wax lagu soo gargaraacay. Markaana waxa ay go'aansatay in ayada ay soo fiiriso ayna aado dabaqa ka sareeya. Waxay gargaraacday albaabkii, laakiin isaga keligiis ayaaba isfuray. Waxay hor u soo gashay qolkii iyadoo leh weliba cid miyaa joogta halkaani, laakiinse cidna ma aysan u jawaabin. Waxa ayna daartay nalkii. Markii ay hore u soo gashay waxaa hal mar la damiyay leerkii. Waxa ayna gadaasheeda ka maqashay shanqar. Waxaa ka soo doobaxay wiilkii shaqaalaha ahaa. Waxa uu rabay inuu soo hubiyo cidda qolkaani ku jirto, laakiinse isagana marka uu soo galay waxa uu la kulmay gabadhii oo isbedeshay. Waxa ayna ku soo booday isagii, waa ayna xiijisay. Gabadhaani waxa ay rabtay in ay samayso Charlie. Waxay tiri, Charlie, halkan miyaad joogtaa? Qalinka waxa uu u leexday dhanka heesta ah. Kadibna waxa ay maqashay qosol. Qosolkii markii ay raacdeen wuxuu ahaa walaalkeeda ka yar oo iyada ka cabsiinayay. Markii ay banaankii iskaga bixisay ayay mar kaleeto waxa ay tiri, Charlie, halkan miyaad joogtaa? Qalinkana waxa uu aaday dhanka heesta. Haddana waxa ay tiri, Charlie, imtixaanka miyaan ku baasi doonaa? Qalinka laakiinse markaan wuxuu aaday dhanka nooda. Haddana waxay tiri, Charlie, ma hubtaa? Qalinka waxa uu aaday dhanka heesta. Mar kaleeta waxay ku tiri, Charlie, taajir miyaan noqon doonaa? Qalinka laakiinse nasiib xumo waxa uu aaday dhanka nooda. Mar kale waxa ay tiri, Charlie, qof wanaagsan miyaa tahay? Laakiinse qalinka waxa uu aaday dhanka nooda.
waxay ku tiri Charlie waxaan rabaa in aan joojiyo, balse qalinkii aad ayuu u wareegsaday. kadibna waxa uu istaagay dhanka nooda. kadibna si tartiib ah ayaa waxaa loo soo furay albaabka, weliba cid aanan la arkaynin. waxay meel dheer ay ka aragtay walaalkeeda oo nooc kaleed u dhaqmayo, oona qoslaya qosol la yaab leh. waxay tiri walaal adiga miya? laakiinse qalinka waxa uu istaagay dhanka nooda. kadib waxay tiri Charlie miya? kadib qalinka waxa uu istaagay dhanka yeesta. kadibna waxaa ku soo cararay walaalkeeda, haddana waa ay weysay. waxay aragtay dhinaca derbiga oo hooskii walaalkeeda oo dhankeeda u soo socda, weliba dhinaceeda u soo dhowaanaya. hooskii markuu u soo dhowaaday waxa uu la soo baxay mindi, kadibna